Igraalaad waa yar hargabsanahay 31 sano kadib jacayl guuleystay ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga. Todobabax ayaa loo geeyay fanaanada Safiya Tusmo magaalada Jigjiga halka oo damaashaad heer sare ah iyo waliba soo dhaweyn diiran loogu sameeyay. Aan wada daawano qaabka ay u dhacday soo dhaweyntaas. ما شاء الله sida arkaysaan baa soo dhaweyn qurux badan ayaa loogu sameeyay magaalada Jigjiga iyo leedee todobabax isku jira caadi maahan ma sha Allah aad baa loo sharfay TV-ga Home Cable iyo waliba warbaahin kale meesha joogta ayaa muuqaalkani xaqooda iskale oo halka ka soo duubay sida arkaysaan ma sha Allah bulshada si fiican bay u soo dhaweynaysaa oo wax baa lagu soo dhaweeyay xaajiyeedii Cabdullaahin waa ay garab socdaa iyagoo ma sha Allah aad isugu faraxsan dhowr hadal ay Safiya meesha ka tiri waxaana sheegtay inay deegaanka u dhalatay oo aanay marti ahayn balse dadku sida ay soo dhaweeyeen ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin halkaana damaashaad iyo todobabax ay u joogaan sida aad ka arkaysaanba xaajigeeda oo ah ganacsada caana oo la yiraahdo Cabdullaahi sida hore u taqaananba ayaa isna ma sha Allah damaashaadka ku wehliya asigoo aad ugu faraxsan xaajiyeediisa cusub iyo lamaantiisu inay ayagu si wada jira ay todobabax ugu tagaan magaalada Jigjiga isla markaana deegaanka ay ku dhalato looga soo dhaweeyo si wanaagsan oo diiran Safiya Tusmo oo ka tiri dhowr hadal halka ayaan idin hayaa iyana ila daawada waatan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي بان إدين سلامية دمان شعبوينها كسو قيب قلي مانتا سودوينتي ده هالكن ليجو سميه فنانينتا أبوانينتا محنقول ورياشة تيفية ده دلنيرة ده أصحابتا حاجة جيجا دمان وحنا دين الله واد محد سنتين سوماليد waxay tirahdaan niman dad lahayni waa niman dad lahayn dad idinkaan dad magacdin ku leeyahay idinka halka ay gaarsiiyay idinka la'aantiin halkana maanta ma joogeen Safiya Tusmo ma ahaadeen gurmadka adiga gashin 2021 ma ilaawi karo anigu ma ahi marti deegaankan u dhashay dambal baan ku dhashay deegaan maxaan ku dhadaa degmada dambal waa wadankaygii waa caasimadeydii reer Soomaali galbeed baan ka tirsanahay gobolkaygii weeyaan magaaladeydii weeyaan ma ihi maaragtay qof meel kale timid oo lagu soo dhaweeyay wadankayga baa lagu soo dhaweeyay aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadcelinayaa thank you marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed cidii muuqayga iyo maqalkayga taqaana anigoo magacayga iyo magaca fanaanada Soomaaliyeed ku hadlaya ayaa waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo walaashay Safiya Tusmo iyo la wada soconay Safiya Tusmo iyo saygeedu waxa meherkoodu ka dhacay caasimadda gobolka Awdal ee Boorama halkaasi oo baraha bulshada si wanaagsan aad uga socoteen in Safiya Tusmo hidaha iyo dhaqanka qiimaha ugu sareeya oo wali lagu arag inta ku hadasha afka Soomaaliga ama una saf sheegata Soomaalida meherkii ugu qaalisanaa adduunka ka dhaca ayaa u qabsoomay iyadii saygeeda oo garab taagan nasiib wanaagna ku soo dhaweeyay magaalada Jigjiga hagaag looma kala harin sidaad u jeedaanba soo dhaweynta Safiya Tusmo waxaana soo dhaweeyay inta ugu badneed oo ah bahda warbaahinta iyo fanaaniinta oo ay ahal dhow yihiin ahal dhow waxaan ka wadaa dadkii ay aadka isugu fiicnaayeen macnaha soo dhaweyn qurux badan ayaa runtii ma sha Allah loo sameeyay waxaanay dadku aad u bogaadinayeen in Safiya ay hore u socoto isla markaana aysan dhag jalaq u siin wixii la soo dhaafay iyo wixii dhibaato hore u soo maray intaba soo dhaweyntii wali inta way ka sii ballantaa waana badan tahay aanu idin sii ambaqaad halkeeda iyo Safiyada kolka laga yimaado tafanka iyo takale guudba laga yimaado marka dhammaan inta qaraabada iyo ehelada iyo dhammaan inteen oo dhanba aad baad u mahadsantiin ka soo qaybgalkiinu waa mid wanaagsan oo muhiima Safiyana waxaan leenahay iyo Cabdulaahiba ku soo dhawaada soo dhaweyntan quruxda badan ee leedin hibeeyay lama iloobi karo saxaafadii deegaankuna caashiya bay nagala jooga aad iyo aad mar kale bal sacabka iyo hambaliyada ay maqashiga بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Roode Cabdiraxmaan Ismaan Roode halgan waxaan ahay dhalinyarta deegaanka ee magaalada Jigjiga ku nool hadana maanta u dalbaadagaysa soo dhaweynta